soo dhawaada asxaabay sheeqan inta idinkaga muuqdo magaciisa waxaa la dhahaa Wasiim Yuusuf. sheeqan gabadha su'aal soo weydiisay oo maxaa la dhahay marwo la qaba ah. sheeqan waxay dhahay sheeqow ninkayga maxaa la dhahay aan ku wareersanahay inuu jecel yahay in kaleeto ii sheeg 3 calaamad aan ku ogaan karo ninkayga inuu jecel yahay iyo in kaleeto. sheeqan wuxuu dhahay waxaa jirtuu dhahay 3 arrin oo ninkaada haddii maxaa la dhahay uu maalin kasta uu sameeyo aad ku ogaanaysid inuu ku jecel yahay hadduusan sameynina inuusan ku jecleen. lambar 1 wuxuu dhahay al-ishtiyaaq, yacni inuu xiisitaan in markasta hadduu imaado banaanka ka imaado ama meel uu ka imaado adi markasta nin kuu xiisa inuu yahay oo dhaho oo kuu xiisay uu kuu sheego. lambar 2 wuxuu dhahay al-ihtimaam. al-ihtimaam waxaa waaye daryeel ama maxaa la dhahay yacni qofku danaynaya khaasatan af Soomaaliga hadda si fiican u sii jilciyo danees waa yacni qofku danaynaya adiga xaaladaada markasta marxaladda aad ku sugan tahay wejigaada haddii maxaa la caajis uu ka dareemo yacni mar walba adiga wax uu jirkaada hadduu isbedel ka dareemo kale maxaa kugu dhacay arrimaha yacni maxaa la kugu soo siyaado kaleeto maxaa la adigoon u sheegin asaga maxaa la ku dareemaya waxaa waaye al-ihtimaam, yacni wuxuu muhtam ku yahay arrimahaada adiga oo qaas ku ah oo yacni adoo sheegin uu ogaanaya yacni. lambar 3 wuxuu dhahay magac muusan yeelin laakiin wuxuu dhahay ninka wuxuu dhahay adigoo xanaaqsan oo iska seexanaya iska soo kacaya xanaaqas asagoona ka raali gelin wuxuu dhahay ninkaas wax jecel kuma hayo. laakiin hadduu ninka maxaa la dhahay adigoo xanaaqsan asana hurdo ka imaan weyso inuu ku raali geliyo ma ogiye wuxuu dhahay ninkaas wuu ku jecel yahay. gabadhiya soo booday waxay dhahday sheeqow 3 calaamad baa ninkaygu leeyahay maxaa la dhahayay wax oo xiisana kama dareemi ihtimaamna kama dareemi haddii aan xanaaqsana iyo haddii kalan maba kala jeclee dhahday. maxaa la dhahayay sheeq wuxuu dhahay runta lagama reeste wallaahi runtu waxaan ku dhahay indhaha ka saaray gabadha inkasta oo xanuun ay leedahay. wuxuu dhahay adiga iyo armaajada guriga taalo wuxuu dhahay seemaa tihiin horta mujarad qadaama wuxuu dhahay gurigaas ah ka tahay ninka noocaas kuula dhaqmaayo wuxuu dhahay wax jecel ku haayo malahan laakiin wuxuu dhahay arrintaas xalay leedahay waa inaa xal aad ka gaartaan yacni maxaa la dhahay aad xalisaan.